dhalinyarooyinta haweenka sharafta leh dhammaan waayeelka halkan isku yimiday marka hore waxaan inagu salaami nin walba martabadiisa waxaan inagu salaami salaantii ahlu jannah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan inagu mahadnaqayaa aad baan inagu soo dhawaynayaa aad baan ugu faraxsanay maanta halkan in iskugu yimaado iyadoo loo dhan yahay xildhibaanada labada gole iyo duqayda haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyadoo loo dhan yahay hawshan iyadaa maanta war murtiyeedkeegana dambe Suldaan Jackson akhriyo doono arrintani waa arrin fac weyn weeye waa arrin muddo badan soo socotay weeye waa arrintii 2001 weeye Allah yarxameen Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waa arrintii 2005 weeye mudane Daahir Rayaal Kaahin waa arrintii mudane Siiraayo waa adinta maanta uu gacanta ku hayo mudane Muuse Biixi Cabdi haddii aanu nahay odayaasha matalayay odayaasha beelaha Gadabuursi ama galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland inagoo Soomaaliland inagoo kuwii dhisaya inagoo kuwii dhaqaya waxaan uga fadhinay waxay ahayd arrinta qaangaarka ah ee raggii maalinta dhashay kuwa talinaya mikrofoonka haysta ay yihiin in wixii arrinkii lagu ballamay uu dhalo ayaan hogaaninaga ahay waa la noo yeedhay waan la kulannay waxa la nagu yidhi maantana sidii hore ha lagu galo waxaanu ku nidhi maya tala hallaka waxaanu nidhi waxaa noo yimid mas-uuliyiinta ugu sarreeya Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka labada xisbi qaran hogaaminkooga waxa la naga codsaday waxay ahayd waa in la sheego wixii la codsaday waxa la naga codsaday waxay ahayd in sidii hore lagu galo dibna la iskugu soo noqdo annagu haddaan odayaashiinay arrinkaasi waa noo cuntami waayey waxaan nidhi dhaxlayaal baanu nahay baanu nidhi kuwii talinaya maalintaa ma nihin kuwii labada golo ku jiray ma nihin kuwii salaadiinta ee duqayda ahaa ma nihin annagana waxaana daba taagan dadkii hawshan inay wax ku helaan doonayaana daba taagan sidaa awgeed 23 yagani ma qaadi karo wariisadii Gadabuursi wixii uu lahaa halan kama qaadi karo umana geyn karaan waxaan rajaynaynaa in arrinta dib loogu noqdo madaxweynaha iyo ciddii u heliyay inay dib ugu noqoto waxaan rajaynaynaa in arrintaasi cad oo hufan loo galo waxaan rajaynaynaa in tuhun iyo farisku fiiqa faraha badan ee Soomaaliland ka jira tii saaraysay waa in arrintaa dib loogu noqdo qof walba wuxuu leeyahay oo helo way marka waxa la kala ridanayo waxba la faraha la fiiqfiiqaa dadka meelaha lagu tiirtiiriyaa waa anago Soomaaliland waa anago kuwii dhisaya waa anago kuwii lahaaya waa anago kuwa aan marraba la fujinayna ayaan wax yigi u fadhinaa aad iyo aad maasantiin intan hadal badnimo noo geysay war murtiyeedka la akhriyaa duqaydii dadkii horeeyay halkan waxa weey ka hadlayna wixii way sheegeen aad iyo aad baad u mahadsantiin dhalinyaro
aad baad haween weyn oo u mahadsan tihiin waan nigu bogaadinaynaa waxa weeye waxaan ku soo gunaanadayaa heesta wiilka iyo hawga soo raaco ha kala hari salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh